Si uu dadka uga arguto, boqorka eeyada ayaa wuxuu soo watay boqolaal eeyo oo manaxayaal ah. Isagoo ciidankiisa hogaaminaya ayaa uu soo weeraray magaalada, balse si lama filaan ah waxa uu la kulmay gabadhii isaga soo korisay. Haddaba maxaa dhici kara? Filimka ayaa ku bilaabmaya gabar yar oo Lily la yiraahdo oo dhib badan. Iyadoo tan iyo markii ay waalidkeedu kala tageen waa ay rafaaday. Saaxiibka kaliya ay leedahayna waa ay lagu magacaabo Hagen oo mar walba ay la ciyaarto. Lily hoodeed waxay howlo shaqo u aadaysaa Australia, waxayna ninkeedii hore ee Daniel ka codsatay inuu sii ilaaliyo gabadhooda iyo eegeeda. Isagu wuxuu ka shaqeeyaa kabaanka hilibka oo markii ugu dambaysay ee uu arko gabadhiisa waxay ahayd ilmo yar. Daniel aad uguma faraxsana in ay gurigiisa la keeno. Si kastaba ahaatee waxa uu diyaar u yahay inuu Lily daraadeed u sameeyo. Markii ay guriga soo galeen, milkiilaha guriga ayaa Daniel u sheegtay in ay aan apartmentigan la ogoleen. Wuxuu isku dayay inuu naagta u sheego in eyga uusan muddo dheer sii joogi doonin. Waqtigii cashada, Lily waxay la ciyaaraysay eyga oo waxay siisay cuntadii ay cuni lahaayeen. Tani waxay ka caraysiisay Daniel oo wuxuu gabadhiisa ku canaantay inay jebisay shuruucda guriga. Habeenkii Lily waxay doonaysay in Hagen uu qolka la seexdo. Si kastaba ahaatee aabaheed ayaa ka soo horjeestay oo eyga musqusha ku xiray. Habeenkii oo dhan Hagen kurba ayuu ku sugnaa. Lily si ay eegeeda u dejiso ayaa waxay muusig ugu tuntay qalabkeedii turumbada. Hagen si degdeg ah ayuu u seexday markii uu muusigada maqlay. Lilyna musqusha ayay la seexatay. Subaxdii xigtay Daniel wuxuu soo toosay iyadoo albaabka la garaacayo. Kormeere qaabilsanaa daryeelka iyo kontaroolka xayawaanada ayaa u yimid kadib cabasho uga timid deriska. Daniel wuxuu isku dayay inuu qoriyo eyga guriga jooga, laakiin waqtigaas Hagen wuxuu ka soo baxay musqusha. Kormeeruhu wuxuu Daniel u sheegay inuu bixiyo canshuur maadaama uu guriga ku haystay xayawaan aan diiwaan gashnayn. Ninkan wuxuu ka carooday oo uu diiday inuu lacag ka bixiyo eyga xaaskiisii hore. Markii ay sheekadooda maqashay, Lily waxay ka walwashay in aabaheed uu eyga wareejiyo. Si aan Hagen loo qaadin ayaa waxay u waday iskuulkeeda muusigada lagu barto. Waxay ku qarisay qolka bakhaarka muusigada oo cod dheer aawadeed. Eygu wuxuu ka soo baxay qolkii bakhaarka oo fasalka ayuu arqaladeeyay. Maalinka oo xanaaqsan ayaa Lily ka dalbaday inay eyga banaanka u bixiso oo ayna fasalka ku soo noqoto. Laakiin gabadhu ma rabto in saaxiibkeed ay kaligiis ka tagto. Sidaas darteed waxay raacday isaga. Intay guriga u sii socotay, Daniel oo baabuurkiisa wata ayaa Lily ka daba tagay. Sababtoo ah macallinkii ayaa soo wacay. Wuxuu ku qaylinayay gabadhiisa oo wuxuuna rabay inuu Hagen geeyo hoyga xayawaanada lagu hayo. Gabadhu ma rabto sidaas oo waxay isku dayday inay aabaheed ku qanciso inuu bixiyo canshuurta. Isagoo xanaaqsan ayuu baabuurka joojiyey oo Hagen ayuu waddada ku sii daayay halka ay inantiisuna u oynaysay saaxiibkeeda. Eygu wuxuu isku dayay inuu baabuurka daba ordo, laakiin waa uu gaari waayey. Sidaas darteed wuxuu ku dhex lumay bartamaha waddo weyn oo mashquul badneed. Habeenkii Lily waxay qorshaysay inay Hagen raadiso, waxayna qaboojiyaha uga soo bixisay xoogaa hilib ah. Aabaheed ayaa canaantay oo dib u horodsiiyey. Eygu saacado badan ayuu Lily ku sugayay isla meeshii looga tegay, laakiin weli looma imaan. Hagen wuxuu go'aansaday inuu raadsado cunto oo wuxuu arkay ey uu baabuur jiiray. Cabaar ayuu ka fikiray inuu cunayo ey isagoo kale ah, balse aakhirkii wuxuu go'aansaday inuu raadsado cunto kale. Isagoo urtraacaya ayuu arkay dukaan hilibka lagu iibiyo oo isagoo gaajaysan ayuu hilibkii eegayay. Si lama filaan ah waxaa isagu arkay ey yar oo caddaa, kaasoo u sheegay inuu soo raaco. Eygan waxa uu Hagen geeyey daaradda dambe ee kawaanka, halkaasoo eeyo kale ay ku cunayeen hilib la soo reebay. Laakiin Hagen markuu u soo dhawaaday ayaa eeyihii kale ay bilaabeen inay ku qayliyaan. Hiliblihii baa qayladooda maqlay oo kala eriyey. Hagen waa iska sii taagnaaday oo hiliblaha ayuu ku ciyayay, taasoo ninkan aad uga caraysiisay. Wuxuu galay qolkii kawaanka, balse hiliblihii oo baangad wata ayaa meesha ugu yimid isagoo raba inuu dilo. Eygii caddaa ayaa Hagen u soo gurmaday, wuxuuna ninkii kaga dhigay lugta oo uuna Hagen badbaadiyey. Waxaa Hagen la geeyey goob cidlo ah, halkaasoo eeyada la dayacay ay ku baashaalaan oo ayna biyo ka helaan. Hagen wuxuu isku dayay inuu kooxdan ku biiro, laakiin eeyadii kale ayaa ku qayliyey. Markaas Hagen iyo saaxiibkiisii caddaa dhinac ayay ka daawanayeen eeyada. Maalintii xigtay kooxda qaabilsan daryeelka eeyada ayaa goobta yimid. Labadii saaxiib waa ay ka badbaadeen in shabaq lagu rido. Hagen laba nin oo daacad iska dhigayay ayaa mid ka mid ahi u soo dhawaaday si uu u qabto, laakiin eygii caddaa ayaa uga digay, sidaas darteed khatartii uu ka badbaaday. Intay sii cararayeen Hagen wuxuu dhex ordayay luuqyada magaalada, waxaana raggii ka badbaadiyey nin darbajiif ahaa. Ninkan wuxuu cunto siiyey eyga, wuxuuna qoorta uga xiray xarig. Daniel waxa uu Lily u kaxeeyey iskuulkeedii muusikada, wuxuuna ku qasbay inay raaligelin ka bixiso habdhaqankeedii. Gabadhu waxay aabaheed iyo macalinkeeda ku qancisay inaysan dib dambe u raadin doonin eygeeda. Si kastaba ahaatee fasal kadib, Lily waxay aadeen meeshii ay Hagen uga soo tageen maalin ka hor, laakiin waa ay ka weysay halkaas. Gabadhu ma aysan isdhiibin oo waxay sii waday inay eeg ka sii raadiso waddooyinka, iyadoo meel walbana ku rajinaysay boorarka baafinta. Isla fiidnimadaas ninkii darbajiifka ahaa ayaa Hagen ka iibiyey mulkiilaha maqaayadan si uu u helo xoogaa lacag iyo cunto ah.
ninka maqaayadan leh ayaa ah nin si sharci darro ah u sii iibiya eeyada soo lumay. subaxdii xigtay macaamiil lagu magacaabo Zabalaj ayaa yimid si uu u gato ay uga qaybgeli lahaa tartan dagaal oo eeyada loo qabto. mulkiilaha maqaayada ayaa u dooray mid ka mid ah eeyihii xoogga badnaa, laakiin iibsaduhu ayaa Hagen doortay. wuxuu isku dayay inuu la hadlo macaamiilkiisa si uu ay kale u doorto, maadaama Hagen uu caato ahaay oo uuna awoodin inuu ka qayb galo tartan dagaal. laakiin Zabalaj wuxuu ku kalsoon yahay inuu eegan ka dhigi karo mid awood badan oo dagaalami kara. wuxuu eegii siiyey kaniiniga hurdada si uu u geysto gurigiisa. markii Hagen uu soo toosay ayaa wuxuu ninkan siiyey borotiinno la isku dardaray si uu murqaha eeyga u dhiso, si uu uga sii dhigo mid manaxa ah. Zabalaj ayaa si joogtaa ugu garaacayay karbaash, wuxuuna mariyey tababar naxariis daro ah. xoogaa yar kadib Hagenkii maskiinnimada iyo naxariista badnaa ayaa isku beddelay bahal naxariis daran oo diyaar u ah inuu kala gooyo qofkii ka hor imaada. dhan kale Lily ma aysan joojin raadinta saaxiibkeeda, waxay timid hooyga eeyada lagu xanaaneeyo. waxayna mulkiilaha weydiisay Hagen. naagtu waxay sheegtay inaysan arag, balse ay macquul tahay inuu webiga ku dhacay ama uu baabuur dardaray. intii ay inantu meesha ku jirtay, baaskiilkeedii ayaa la xaday, waxayna iyadoo keligeed ah ku go'doontay meel ka fog guriga. habeenkii Zabalaj wuxuu Hagen u waday goobtii dagaalka eeyada si uu awooddiisa u tijaabiyo. xeerka dagaalkan ayaa ah mid fudud, keliya 2 eey oo xanaaqsan ayaa dagaalamaya. kii noolaadana wuxuu noqonayaa guulaystaha. mulkiilaha eey guulaysta wuxuu helayaa lacag fara badan. Hagen waxaa lagu sii daayay fagaaraha dagaalka isagoo ka hor imaanayay eey madow oo weynin badan. dagaal qaraar ayaa dhex maray labadooda, oo Hagen markii hore waa laga adkaan rabay, laakiin aakhirkii Hagen ayaa cunnaha ku dhuftay eeygii ka soo horjeeday oona ciyaarta ku guulaystay. inkastoo uu tababariis ku faraxsanaa guushiisa, haddana Hagen wuxuu eegayay eeygii madoowa oo meydkiisa goobta laga saarayaa. iyagoo la dhacsan awoodda Hagen ayaa mid ka mid ah daawadayaasha oo isku dayay inuu eegan ka iibsado milkiilihiisa. Zabalaj waa uu diiday inuu iibiyo. nimankii waxay bilaabeen inay la doodaan. si lama filaan ah korontada ayaa meesha ka tagtay. Zabalaj wuxuu u malaynayaa inuu qof xaday eeyga, balse Hagen isagoo xaaladaas ka faa'iidaysanaya ayuu cagaha wax ka dayay. isla waqtigaas Lily waxay habeenkaas u ordaysay gurigeeda. waxay si lama filaan ah ula kulantay Peter oo ay isku fasal yihiin. gabadhu ma rabto inay u noqoto aabbaheed oo waxay Peter ka codsatay inuu u kaxeeyo baar ay u socdeen. markii hore waa uu diiday, laakiin wuxuu markii dambe go'aansaday inuu Lily ka faa'iidaysto oo ay gudaha baarka ugu qaado xoogaa xashiish ah. dhalinyaradii waa la baaray markii ay galayeen, laakiin waardiyuhu gabarteerii waa iska fasaxay. markay gudaha galeen, Peter Lily keligeed ayuu ka tegay, wuxuuna u tagay gabdho kale waaweyn. waxay Lily bilowday inay cabto kaadasheedan oo waa ay sarqantay, taasoo keentay inay ku dhex hurdo baarka. subaxdii booliiska waxay yimaadeen baarkii oo waxay ka heleen xashiish ay wadatay. waxay Lily geeyeen saldhigga booliiska, halkaas oo ay ku martay baaritaan daroogada ah. jirkeedii daroogo waa laga waayey, oo booliiska ayaa gabadha ku wareejiyey aabbaheedii oo walwalsanaa. Daniel wuu ooyey oo wuxuu ka murugaysnaa wax gabadhiisa ku dhici karay. waa uu raaligeliyey oo wuxuu u soo bandhigay in eey kale oo ay korsato ay keensato. gabadhu way cafisay aabbaheed oo waxay sheegtay inaysan u baahnayn eey dambe, sidaas darteed waxay ku noqdeen guriga. maalintii xigtay Daniel wuxuu aaday shaqada, laakiin wuxuu ka baqayay in Lily ay mar kale guriga ka cararto. gabadhu waxay u ballan qaaday inaysan cararaynin oo uu shaqada aado. dhan kale Hagen waxa uu ku noqday barxadii cidlada ahayd, halkaas oo uu ku arkay saaxiibkiisii caddaa. webiga agtiisa ayay ku wada ciyaarayeen, laakiin waxaa mar kale u imaaday shaqaalihii daryeelka eeyada. markan waxay ku guulaysteen inay shabaq ku ritaan oo waxay geeyeen hooyga eeyada. mulkiilaha hooygan ayaa arkay in Hagen uu si xun u dhaawacan yahay oo waxay u dirtay in la daaweeyo. intii ay markooda sugayeen in la daaweeyo ayaa eeyadu waxay daawanayeen Tom and Jerry. Hagen wuxuu qolkii ku dhagnaa ku arkay naag cirbad dila ahi ay ku duraysa oona meydkiisa bacmadow ku ridaysa. nasiib wanaag Hagen tani waa uu ka badbaaday oo si caadi ayaa loo daweeyey, waxaana la geliyey qafis ay ku jireen eeyo kale. shaqaale ayaa cunto u qaybinayay eeyada, laakiin si ka duwan eeyaha kale. Hagen xitaa cuntadan ma uusan taaban, maxaa yeelay qofna kuma uu kalsoono. maalintii xigtay dad ayaa soo booqday hooygan si ay u gataan eeygay rabaan. mid ka mid ah dadkii soo booqday ayaa rabtay inay Hagen gadato, laakiin waa uu carooday markii ay inantan qafiska u soo dhowaatay. mulkiilaha hooygan ayaa shaqaalaha ku amray inay xakameeyaan eeygan waalan. isla waqtigaas xaflad muusigada lagu soo bandhigayay ayaa ka bilaabmatay iskuulkii ay Lily dhiganaysay, oo Lilyna waa ay ka qaybgalaysay. Daniel ayaa yimid si uu u taageero gabadhiisa. dhinaca kale marka mid ka mid ah shaqaalaha uu isku dayay inuu Hagen geliyo qafis ay eeyo kale ku jireen, ayaa uu eeygan iska furay xarigii ku xirnaa oo wuxuu weeraray ninkii. qoorta ayuu ka qaniinay oo si naxariis dar leh ayuu u dilay. boqolaal eeyo ah ayaa ka soo baxay qafiskooda oo Hagen ayay soo raaceen iyagoo u arkayay hogaamiyahooda. mulkiilaha hooyga ayaa isku dayday inay Hagen joojiso, laakiin si dhib yar ayuu u dardiray ayada. eeyihii kale ayaa Hagen soo daba orday. koox eeyo aad u badan ayaa buux dhaafiyey waddooyinka, taasoo argagax ku abuurtay dadka magaalada.
iyagoo caraysan oona gaajaysan ayay dadkii dhacayeen oo ayna cuntadooda ka qaadanayeen. Waxay sidoo kale yimaadeen xafladdii Lily oo dhinac walba ayay dhismaha ka hareereeyeen. badbaadadooda awgeed dadku waxay isku urursadeen hoolka xafladda iyagoo sugayay caawimaadda booliiska. Lily waxay hubtaa in Hagen uu ku jiro eeyadan oo waxay u baxday inay raadiso. Peter wuxuu isku dayay inuu gabadhan kala hadlo fikradan halista ah, balse aakhirkii wuxuu ka caawiyey inay dibadda u baxdo isagoo amaahinaya baaskiilkiisa. Lily waxay dhex maraysay waddooyinka oo cidlo ah iyadoo rajaynaysa inay hesho saaxiibkeeda Hagen oo uuna dagaalka joojiyo. Si lama filaan ah kooxdii eeyada ayaa luq ka soo baxay oo jiiray inantii iyo baaskiilkeeda. iyagu kuma aysan tuman oo orodkooda ayay sii wateen sidii inay hadaf gaar u socdaan oo kale. isagoo noqday hogaamiyaha eeyada ayaa Hagen wuxuu go'aansaday inuu ka arguto dhammaan kuwii dhibaatada u geystay. wuxuu ka bilaabay mulkiilihii maqaayadda kaasoo Zabalaj ka iibiyey. eeyadii ayaa ninkan qaniinay ilaa uu ka dhinto oo meydkiisa waxba kama aysan reebin. Lily waxay daba socotay eeyadii waxayna noqotay qofkii ugu horreeyay ee yimaada goobta uu dil ka dhacay. booliiska ayaa iyadu qabtay maadaama ay jebisay bandowgii ay soo rogeen waxayna saareen baabuurkooda. si kastaba ahaatee inantii ayaa u suurtagashay inay baxsato oo ay aado dukaankii hilibka. halkaa waxay ku aragtay meydkii hiliblaha oo kala go'an kaasoo dhibanihii labaad u noqday kooxda Hagen. Lily way matagtay laakiin waxay awoodday inay Daniel wacdo. waxay aabeed u sheegtay inay Hagen raadinayso ka hor inta aysan booliisku qaban oo ayna dilin. saraakiisha booliiska ayaa ku guulaystay inay hareereeyaan oo ayna togtaan dhowr laakiin intooda badan waxay ku guulaysteen inay baxsadaan oo ay howlooda sii wataan. isla markaas Zabalaj wuxuu daawanayay war ku saabsan eeyada kooxda u abaabulan ee dadka dilaya. Hagen waxa uu isagoo asxaabtiisa la socda soo booqday ninkan jirdila jiray. Hagen wuxuu kooxdiisa amray inay ninkan weeraraan oo ayna kala googooyaan. eegii caddaa wuxuu arkay Lily wuxuuna ka codsaday inay raacdo si uu Hagen ugu geeyo. askari ka tirsanaa ciidanka daryeelka eeyada ayaa ka soo horbaxay kaasoo toogtay eegii miskiinka ahaa. inkastoo Lily ay ka codsatay inuusan dilin ayaa haddana askarigan uu kor tagay eega oo dhaawac ahaa waana uu dhammaystiray. gabadhu waxay u carartay guriga aabaheed halkaas oo ay ku aragtay meydka naagtii guriga lahayd. hadda shak kama qabto in eeyadu uu Hagen hogaaminayo ay dilayaan dad gaar ah oo waxayna filaysaa in Daniel uu noqon doono bartilmaameedkooda ugu dambeeya. Lily waxay tagtay goobtii shaqada aabaheed si ay khatarta uga digto. si kastaba ahaatee Daniel ayaa sidoo kale ka walwalsanaa badqabka inantiisa, sidaas darteed wuxuu aaday kawaanka si uu hub u soo qaato. dhan kale kooxdii eeyaha ee uu Hagen hogaaminayay ayaa Lily waddada dhexdeeda ku hareereeyey. gabadhu waxay isku dayday inay la hadasho saaxiibkeeda Hagen laakiin isagu markan kuma kalsoonaa maadaama dhibaatooyin fara badan loo soo geystay. isagoo caraysan ayuu u soo dhowaaday wuxuuna diyaar u ahaa inuu kala gooyo inantan. Daniel ayaa dhismaha ka soo baxay isagoo holac wata si uu eeyada uga fogeeyo gabadhiisa oo uuna u badbaadiyo. tani waxay kasii xanaajisay eeyihii oo waxay bilaabeen inay Daniel ku qayliyaan. Lily waa ay oosay oo waxay isku dayday inay xaalad dejiso laakiin qofna ma uusan dhegaysan. kadib waxay Hagen turumbadeeda ugu tuntay muusigadii u jeclaa. markuu maqlay muusigadii u jeclaa eeygu ayaa ugu dambeyntii isdejiyey oo dhulka jiftay. asxaabtiisii waa ay ka daba daysadeen oo waxay sidoo kale jifteen dhulka iyagoo si degan u dhegaysanaya muusigada. isagoo weli naxsan ayaa Daniel wuxuu dareemay inay khatartu istaagtay oo ayna gabadhiisu bad qabto. markii ay muusigadu dhammaysay Lily waxay ag jiiftay Hagen iyo asxaabtiisa ilaa uu waag ka baryo oo Danielna uu ku soo biiray. intaas ayuu filimkan ku eg yahay. subscribe saar kanaalkan si aad u hesho muuqaalo badan oo kan oo kale ah. furo gambaleelka oo noo reeb like si aad u caawiso kanaalka. waadna ku mahadsan tahay daawashadaada.